waxaa farxad weyn noo ah dowlad ahaan iyo Soomaali ahaanba labadii maalmood ee ugu dambeysay shalay iyo maanta discussion-kii ama wada hadalkii fayoobaa ee halkan ka dhacay ee looga hadlayay dhismaha hay'adaha dawladda iyo hay'adaha dalka Soomaaliyeed ee isugu jira dabcan ama culayska lagu saarayo kuwa gaarka loo leeyahay looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya looga hadlayay sidii ganacsiga Soomaaliya loo horumarin lahaa iyo sidii Soomaaliya loogu soo jiidi lahaa maalgashi ka imaanaya dadka Soomaaliyeed ee waxaysta ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan iyo dabcan maalgashadayaasha ama maalqabeennada caalamka sidii loogu sahli lahaa inay Soomaaliya maalgashadaan si ay nolosha bulshada Soomaaliya isu beddesho oo shaqo la'aanta dalka ka jirta looga baxo sidaad arkayseen ilaa shalayto waxaa dawladda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo kala harin halkan lagu soo bandhigay sidii qodobada aan sheegay loogu sameyn lahaa qorshe dawladda nabad iyo nolol iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed dawladda waad arkaysaa mas'uuliyaddeedu ma aha oo kaliya inay dhisto hay'adaha dawladda mas'uuliyaddeeda waxa weeye inay dhisto hay'adaha Soomaaliyeed ee kuwa dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay inaanu dhisno inaanu horumarino inaanu caqabadaha iyo waxyaalaha ay doonayaan in laga duwo ka ogaano kadibna xal u helno iyo inaanu Soomaaliya ka dhigno meel barwaaqo oo uu ka jiro ganacsi iyo maalgashi iyo nolol xora oo xoog waxaan ku faraxsanahay runtii sida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka oo dhan ka timid iyo meelo dibadda kamid ah ay shirkan uga soo qayb galeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaanu ku faraxsanahay hoggaanka gudoomiye Gabayre iyo rugta ganacsiga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed sida ay isaga xil saarayaan in ganacsatada ay hoggaanka u yihiin horumarto hay'adahooda iyo shirkadahoodu dhismaan si ay ula tartamaan kuwa kale adduunka dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumadda gaar ahaan hay'adaha dhaqaaluhu waxay xoogooda isugu geeyaan sidii dhaqaalaha Soomaaliya loo horumarin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u raacay dhowr safar oo uu ku tegey Turkiga oo uu ku tegey Djibouti oo uu ku tegey China oo uu ku tegey South Sudan maantana wuxuu baxay Talyaani intaas oo dhan wuxuu ka hadlayaa waxa halka looga hadlayo iyo in nolosha Soomaaliyeed wax laga bedelo in ganacsatada Soomaaliyeed ee meelaha ku sugan la ogaado duruufta ay ku jiraan ka bacdina loo sahlo sidii ay dalka ay joogaan ay ula dhaqmi lahaayeen ganacsigooduna ugu xoogaysan lahaa waxaanu samaysanay oo markii saddexaad sida gudoomiyuhu sheegayo saxeexnay qorshe hagaya oo nagu hagaya dhismaha hay'adaha dawladda awoodooda iyo waxqabadkooda in la siyaadiyo isla markaana kuwa kale ee private sector-ka ama shirkadaha Soomaaliyeed iyagana la xoojiyo oo laga dhigo shirkado xoog leh oo system leh la aamini karo oo wax la qabsan kara haday dalka gudihiisa ka shaqaysanayaan iyo haday dalka dibaddiisa ka shaqaysanayaanba shirkadaha dhigooda dariiq aanu ku soconno oo ku xisaabtanaanu saxeexno oo sanadkiiba 2 jeer la qiimeyn doono waxyaalaha aan progress-ka aan gaarnay sida qorshaysan ee heshiiskaas saxiix ku jira bisha June ayaanu mar labaad dib u qiimeyn doonaa waxqabadkayaga iyo waxyaalaha kaga heshiinay waxa nooga qabsoomay haddana sanadka dhamaadkiisa marka uu dhamaado 2019 haddii Ilaahay yiraahdo ayaanu haddana mar labaad xisaabin doonaa wixii noo qabsoomay marka dariiq fiican oo dawladdu dadka u dhowdahay oo baahidooda la socoto oo horumarkooda u taagan tahay ayaanu ku soconnaa waa ku faraxsanahay midana gudoomiye adigana roolkaaga